kulanka magaalada fiiq ee xarunta gobolka Erara oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Erara maamulka degmada fiiq iyo qaybaha kala duwan ee waxgaradka magaalada fiiq ayaa waxa ugu horeeyay bulshada u soo bandhigay ahmiyada kulankan looga hadlayo gudoomiyaha maamulka gobolka Erara mudane Axmed Cali Xuseen oo sheegay in shirkan looga hadlayo qodobo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen adkeynta midnimada bulshada dhexdeeda adkeynta arrimaha nabadgelyada gobolka iyo garab istaaga horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda gobolka doorashooyin baa la soo galay shaqooyin badan baad soo qabateen wixii baa laga soo baxay marka in la isu mahad celiyo la wada tashado maxaa naga soo xumaaday maxaa hadda in hor yaalo oo maartay oo baahan mustaqbalkeena inaan ka shaqeyno jihadeen u soconnaa waxyaalaha yaryar ee jiray dhibaatooyinkaasina u gudubnaa shir noocaasa way hadii la yiraahdo oo ku wada tashan hayno oo wax iska weydiin hayno arrimaheena sidoo kale gudoomiyaha degmada fiiq mudane Axmed Maxamed Cabdi ayaa shacabka magaalada fiiq ku booriyay inay si xoojiyaan midnimada iyo xasiloonida gobolka si loo gaaro horumar waara alxamdulillah amni baan haysanaa nabadgelyan haysanaa meesha doontaad u kici kartaa wax inaga maqan ma jirto laakiin amniga dad aan garanaynin baa jira marka waxaan u baahannahay dhammaanteen inaan gacmaha isqabsano ka wada shaqeyno amniga seen uga wada shaqeynaynaa waxaan uga wada shaqeynaynaa waa inay hebel wax dhibka sameynayay aanu kolka aan rabaa inaan dhaho inay hebel bal ka socday bas inay hebel bal soo qabay laakiin sidaan uu qariyo dhaho wiilkayga qariyoonkan habeerta oo qariyoonka idada qariyoonkan adeerka waa qariyo amnigu ma imanaya iyada gacantiisa isku bakeenayo bulshaduna iyada isku tashata amnigeena ka wada tashata laamaha amniguna waxa weeyaan hadayna idinku aadan cudud ahayn dawladda hadayda idinku hagaynin amnigu nooma suubayo marka idinka waxa laga rabaa ka bulsho ahaan saad u naalootaan amni aad u heshaan xasilooni aad u heshaan inaad dhammaantiin ka wada qayb qaataan amniga dhankoodana waxgaradka magaalada fiiq xarunta gobolka Erara ee shirkan ka soo qayb galay ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay si xoojinta midnimada iyo xasiloonida gobolka kulamada noocan oo kale ayaa waxay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Erara la qaadan doonaan maamulada qaybahooda kala duwan ee degmooyinka gobolka odayaasha dhaqanka hooyooyinka iyo liiga dumarka iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda iyo dhalinyarada gobolka Cabdikaafi Axmed Wali SRTV magaalada fiiq